waxaanu khadka telefoonka kula xidhiidhnay doctor nasra yuusuf axmed oo ka mid ah dhakhaatiirta jamhuuriyadda somalilan oo ku sugan magaalada hargeysa xanuunkan faraha ba-an caalamka ku haya ee coronavirus wax badan ka qortay isagoo oo aan jaynaba soo dhaafin. nasra ayaanu ka wareysan doonaa bal xanuunkan iyo taariikhdiisa iyo qaabka uu ku faafo. nasra ku soo dhawow marka hore telefishinka Ariel. waandhaway walaalyaasi waxaad bal naga warantaa amaad noo qeexdaa bal xanuunkan coronavirus ee caalamka faraha ba-an ku haya. walaal horta coronavirus ama kan iminka inaga adduunka faraha baas ku haya noocan la yidhaahdo COVID-19 ama COVID-19 wuxuu dilaacay dabayaaqadii sidaynu ognahay sanadkii aynu soo dhaafnay dalka China ayuu ka bilaabmay. wuxuu ka mid yahay viruskan horta group virusya la yidhaahdo coronavirus oo family iyaguna ka timida la yidhaahdo coronaviridia. marka coronaviridia waa family guud oo viruskan iyo virusyada kale ay ka timid yihiin. guud ahaan waxaa jira 6 nooc oo coronavirus ah oo ibni aadamka waxyeeleeya. intii ka horeysana ibni aadamka xayawaankii ku dhici jireen viruskan coronavirus marka isbedel ku dhacay jiinkoodii mutation ku dhacay jiinkii ayaa maxay disidihii viruska ayaa keenay in ibni aadamka usoo gudbo. marka guud ahaan waxaa jira 6 nooc oo coronavirus oo ibni aadamka waxyeeleeya. 6 nooc laba kamida ayaa sii kala baxa marka oo sugada waxay noqonayaan 7 nooc oo coronavirus oo ibni aadamka waxyeeleeya. 4 kamidi dhibaato weyn ma geystaan, waxay geystaanuun hargabka caadiga ah oo dadkana hore way ugu dhici jireen. hargabka caadigana may dhaafi jirin, way keeni jireen pneumonia way keeni jireen ama viral pneumonia ama in maxay ahayd bacterial pneumonia as secondary infection ay maxay lagu keeni jireen. laakiin dhibaato saa usii weyn may keeni jirin oo bixi jireen. waxayna kamid ahaayeen hargabyada caadiga ee nagu dhaca. 3 kamid ah 3 soo haray 7 kamidka ayaa dhibaatadan geystay. 3daas oo novel coronavirus la yiraahdo iyagu waqtiyo kala duwan mid waliba oo ka dilaacay wadamo kala duwan. tusaale ahaan SARS 2002 ay maxay China u ka dilaacay dhibaato aad u weyn u geystay. MERS isaguna Middle East iyo meelaha ka dilaacay khaasatan Sacuudiga isaguna 2012 maxay isaguna dhibaato weyn u geystay. noocan ayaa noqonaya noocii 3aad markaa oo isagu worldwide ah pandemic ah oo adduunkii oo dhan isaga gooshay dhibaatadan imika taagana maxay ka geystay adduunka badankiisa. Doctor inaguna runtii adduunkaasi ma qaybsanahay. Doctor waad mahadsan tahay. waxaad naga warantaa bal qaab noocee ah ayuu ku faafaa xanuunkan noocan iminka caalamkii oo dhan faraha ba-an ku haya. bal qaabka uu ku faafi karo ama loo kala qaadi karo hadda noo yara taabo. waxa lagu kala qaadi karaa walaal dropletiska qofka qufaca markuu qufaco iyo hindisada dropletiska iyo dhibcaha ka soo baxa qofka maxay ahayd ama qof kala gaara ama qofka freeze intuu gaaro oo meel ku taabto ama qofkii kale uu ku salaamo yani siyaabahaas uu kala gudbi karaa. waana highly contagious oo infectionada waxay ku kala duwan yihiin. qaar baa markiiba la qaadayo maxay ahayd gudba markaasna wuxuu ka mid yahay kuwa markiiba gudbi kara. waana sababtoo adduunkii oo dhan markiiba uu isaga gudbay. marka qofkii oo hindisay tinsaday ama qufacay oo dropletiskii ama dhacaankii uu tinsaday ama qufacay ay farihiisii ama qofkii kaleba toos u gaadheen ayaa keeni kara maxay ahayd inuu sido qofkii kalena markii uu gudbo. marka dhibaatada uu geysanaya way kala duwan tahay. waxay noqon kartaa dhibaato aad u yar sidii hargabka qofka ku dhaafta ama waxa uu gudbi karaa lower respiratory oo sababada u gudbi karaa taas oo halka ay dhibaatada ugu weyn ka geysanaya ay tahay. dadkuna markaa way ku kala duwan yihiin. qaar buu sidaa yar u dhaafaya, qaarna dhibaatada weyn buu geysanaya. wayna ka kici karaan kuwa dhibaatada u geystay wayna u dhiman karaan. mar walba irtiga waxaad ka warantaa iminka 2 ruux ayaa Somaliland la xaqiijiyay in laga helay xanuunkan. bal ka waran xaaladda dalka markaad eegtay runtii wax badanna waad ka qortay xanuunkan intaanu Afrikaba soo gaadhin iyo muddo ka sii horeysayba. bal ka waran xaaladda dalka.
walaa horta xaaladda guud ahaan way degan tahay dadaalna runtii waa la wadaa intuu doonaba ha leekaado itaalka saa lalahaade horena anigu waxaan aaminsanaa kahor intaan labada case la xaqiijin inuu soo wadanka soo galay oo China markii uu ugu darnaa dad aad u tiro badan oo dhalinyaradii wax baranaysa kamid ah u badan ayaa kasoo yaacay marka anigu kulli waxaan aaminsanahay inuu waagaaba ina soo galay maadaama aan idina sameynin maxay taxadri badan oo aan dadka soo galaya la hubsanin xaaladahooda labadan case in kala xaqiijiyeen baa inuu jiro lagu war helay dhibaato weyn oo muuqata oo dad aad u tiro badan oo xanuunka usoo dhacayna runtii ilaa hadda lama xaqiijinin waxaa dhici karta inay jiraan hadday jiraan sida ma tiro badna isbitaaladuna ma aanay soo report garaynin kulley goobaha maxay ahayd shaqooyinka aan joogno iyo isbitaalada guud ahaan cases ilaa hadda maxay ahayd safiir xaaladoodu tahay oo dhibaato weyn u geystay ama ma jirto waan gartay doctore waxaa jira dee xanuunkan caalamkii oo dhan ayaa la daalaadhacaya laakiin walaaca ugu badani waxa uu ka jiraa shaqaalaha caafimaadka oo ay dhakhaatiirta iyo neesaska iyo kamid yihiin iyo xitaa kuwa ka shaqeynaya caadiga dhakhaatiirta ka shaqeeya dadka caadiga ka shaqeeya bal ka waran arrintaasi yani dhibaato intee leeg bay soo wajihi karaan baad umalaynaysaa shaqaalaha caafimaadku wallahi walaal aad bay khatartaasi noogu badan tahay haddaanu shaqaalihii nahay caafimaadka uma diyaarsanin run ahaantii xaaladan oo kale hadday qalab tahay oo qalabkii protectionka ahaa shaqaaluhu ay ahayd inay isku ilaaliyaan tahay iyo haddii ay tahay dee beeshinadii oo aan la kala xadidin oo isbitaaladii meelo loo kala sameynin oo dhammaantood isdhex qaaday oo aan la kala garanaynin oo taasi ay keenayso dhakhtarkii ama shaqaalihii kale ee caafimaadka guud ahaan ay u kulmi karaanba accidentally qof xanuunsanaya xanuunkii qaba kiina uu ka qaadi karo xitaa haddii ay dhacdo in ay cases badan oo xanuunkaasi yimaadaan shaqaale caafimaadka khatarta ugu badan bay soo wajahayaan maadaama aanay protection fiican haysanin taasina ay ku keeni karto iyaga laftigooda ina xanuunkii usoo fargareeyaan sida dee adduunkaba imika ka jirta ee dhakhaatiir badan iyo shaqaale caafimaado badan ay dhibaato kasoo gaadhay dhimasho leh doctore waxaad soo qaaday goobaha caafimaadka maxaa looga baahan yahay goobaha caafimaadka si dadka loo kala xakameeyo goobaha caafimaadka waxaa looga baahan yahay in la kala saaro horta goobihii hore ee xanuunada kala duwan ee dadka ay qabaan lagula tacaalayay ee lagu daweynayay iyo goobaha kale ee xanuunkan lagu karantiinay ama dadka lagu daweynaya inay kala completely inay kala saarnaadaan ba wanaagsan tusaale ahaan haddii isbitaalka weyn ee Hargeysa oo kale oo dad tiro badan oo kala duwan oo badi hadday doonaan xanuunada neef mareenka qaba xanuunada macaan qaba qaarkood keliyaha loo sifeeyo difaacoodu dad badan oo aada u liito oo xanuunsanaya xanuuno kala duwan oo chronic ah qaba haddii imika ay yimaadaan oo iyagana xanuunkan oo kale dadku la dhex keeno runtii dhibaato weyn baa kasoo gaadhaysa oo de khatar bay ugu jiraan in ay qaadaan oo markaa u galaastaba dadka kale xanuunada kala duwan hore qabay sidaynu ognahayna dadka dhibaatada ugu weyn uu soo gaarsiinaya waa dadka pre-existing diseases kale xanuunada hore leh difaacooduna iska yaryahay marka waxaa fiican completely inay ka baxsanaato isbitaalada dadka hore ee xanuunada kala duwan qabay marka waxaa loo baahan yahay in meelo gaara ay helaan oo dadkan lagu manage gareeyo oo ay caringkooda ku helaan runtii waxaa loo qaban karaa way iska yar tahay waa supportive maadaama ilaa hadda aanay jirinin dawooyin la og yahay oo lasoo saaray oo xanuunkana leeyahay marka wixii loo qabanaya supportive waa inay u helaan maxay ahayd meel gaara waxaan kaloo ku dari lahaa run ahaantii in la dalbo oo ay dawladdu ay xil iska saarto in la helo mashiinada supportiveka qofkii haddii ay sanbabadii dhibaata kasoo gaadho waa inuu helaa ventilator waa inay helaan intubation waa in loo sameyn karaa waa in markaa dhakhaatiirtii iyo shaqaalihii kale nursiskii iyo la tababaraa oo u train garaysnaadaan inay intubation ku sameyn karaan emergency-ga oo halkaa beeshinkaa la keenaa uu heli karo
mashiin maxaa ahayday naqaska siiya oo ventilation ay heli karaan la intubate garan karo. intaasiba waa labada ugu muhiimsan life savingka lagu samayn karo dadka maxay xaaladooda safiirka tahay lagula tacaali karo. haddii aan intaasi jirin qofku iyadoo la eegayo in iska dhimanaya aan waxa wax loo qabanaya aanay jirin. oxygenka laftigeedana aad bay u yartahay. marka intaasoo dhamiba waa xaalado iyo dhibaato taagan oon ilaa haddana dad haddii uu soo rito oo xaaladooda ay adkaato aan waxba loogu qaban karin. doctore ugu dambeyntii waa maxay fariintaada aad u gudbinayso dadka shacabka iyo xukuumad ahaan iyo caalamkaba cid alla ciddii codkaaga maqlaysa? talada aan gudbinaya waxay tahay weliba gudbinayo dee waddankan aan joogo maamulka dawladda iyo guddida iminka madaxweynuhu magacaabay iyo madaxda dabcan caafimaadka waa in la helaa horta wixii dadkan support lagu support garayn lahaa lagu badbaadin lahaa noloshooda oo ah ventilatorska iyo intubation in loo samayn karo. waa in shaqaalina la train gareeyo, mashiinadiina la keeno, wax kasta ay ku qaadan karayso. intaa maxay ahayd waa inay dawladda ku dadaashaa, waa inay meel ka keento ka keentee ay keenaan. taas waxa weeyaan waxay noqonaysaa in laisku halayn karo systemka caafimaadka oo haddii xanuunkani uu inaga dhibaato weyn inoo sii geysto ayna maxay ahayd dadka ku qaban kareen. taasi waa taas ayaan horta talada ugu weyn ee muhiimkana ah ay tahay. sidoo kale shaqaale caafimaadkana waa inay naftoodiina u tababarnaadaan siday ka ilaalin lahaayeen maxay ahayd dadkiina ay u samayn lahaayeen lifesaving u samayn lahaayeen u tababarnaadaan. dabcan wacyigelinta dadkana in lasii wadaago wanaagsan tahay waayo dadkeenu aad bay ugu yar tahay, aad bay u adag tahay inay aqbalaan in xanuunkan iyo sida laleeyahay isu ilaaliya ay isu ilaaliyaan. marka inaan laga halinin wacyigelinta la wado xoogana la saaro runtii wacyigelintaas aad bay muhiim tahay. waxaan kaloo ku dari lahaa runtii oo muhiim ah oo aan jeclay inaan fariintana gudbiyo dadka oo dhan face maska dadkeenu sasbaabay ka qabaanba ina face mask la xidho. qofkii xanuunsanayeyna uu isaga ilaaliyo inay dhaafaan wixii ka tegayay isaga, qofkii kalena maxaa ahaday uu isku ilaaliyo inay wax soo gaadhaan uu isaga ilaaliyo. runtii dadkeenu sasbaabay ka qabaanba qof hadday arkaan face mask xidhan oo afka soo dabooshay iyo sanka waxabay moodayaanba in xanuunkii isaga u saadinayo. waxaan aad iyo aada ugu dhiirigelinayaa dadka oo dhan inay xidhaan face maska sababtoo ah viruskan uu hidasidihiisu RNA-ga yahay covid-kan aynu ka sheekeynayno iminka waxa uu leeyahay size kala genome size-kiisu wuu weyn yahay. runtii waxaa lagu qiyaasaa inuu 720 ilaa 34 wax kilobases la yidhaahdo. marka waa viruskan coronaviruska ama RNA viruska oo dhan viruska hidasadahoodu RNA-ga yahay oo dhan waa kuwa ugu waaweyn. marka waxaa dhici karta inaanu maaskan kaba gudbi karinba. marka waxaan odhan lahaa dadku face maska ha wada xidhaan, muhiim buu u yahay. aad iyo aad baad umahadsan tahay. taasi waxay ahayd doctor nasra yuusuf axmed oo kamid a dhakhaatiirta somaliland kuna sugnayd magaalada hargeysa oo khadka telefoonka iigu waramaysay. aad iyo aad baad umahadsan tahay. ayo adiga